الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إخواني waxaan rabaa inaan idhaahdo 3 saacadood yeynan ina dhaafin insha Allah ta'ala qofkii awoodow 3 ducana yeyna ku dhaafin sujuudda inaad ku ducaysato 3 saacadood intaan ramadaanka ku jirno bay qayb aad muhiim u sii tahay waxa weeye cinda al-iftaar markaad afurayso dadku hadal iyo sheeko kale lagu mashquulaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala bari oo gacmaha hoos dhigo rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofka sooman wuxuu leeyahay duco marka uu afurayo oo mustajaaba ah oo ilaahay ka yeelayo waa ko labo aakhir al-layl habeenka gelinkiisa dambe inta aan salaada subax la gaarin iyadana allah baa soo dega subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ma jiraan qof ee wax i weydiisanayo oon siiyo qof istighfaar iyo dambi dhaaf warsanayo u dambi dhaafaa marka istighfaartuna yeena ku dhaafin ilaahay dambi dhaaf xilligaa weydiisto dadka ku tukada masaajidka salaada subax soo gaara hadiiba jaanis loo helo iyadana waxaa fiican ilaa qorraxdu ay kaga soo baxayso ruuxu meeshu ku tukaday inuu sii fadhiyo iyaduna waa umra iyo xaj taama ajirkooda ayaa qofka lagu siinayaa 3 duco in raba inaan dardaarmo الشيخ ابن باز رحمه الله بان runtii u baraarujiyo oo u dardaarma 3 adciya 3 duco halmaamina buu yiraahdaa inaad sujuudda ilaahay ku baridaa midda koobaad waxa weey ilaahay inaad weydiisato xusnul khaatima allahumma inni as'aluka xusnal khaatima allahumma inni as'aluka xusnal khaatima wa ko ducada labaadna inaad ilaahay weydiisato allahumma arzuqni tawbatan nasuhan qabla al-maut allahumma arzuqni tawbatan nasuhan qabla al-maut taasina waa mid labaad tasaddexaad waa ducada rasuulku ku celcelin jiray allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik ana hal mar ku soo celiyo ducadii اللهم ارزقني توبة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهاميو أو الله إنها ليشيو أو الله إنه كرسيو إن إلهي كوي ديسن السجود أو وقتك إلهي سبحانه وتعالى وبدأ أو قفك لقى أجيبها دعاء وكجرو وجزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.